waxaa guud ahaan gobolka Sool laga dareemayaa u diyaar garowga Ciidul Fitriga waxaa suuqyada magaalada Laascaanood ku soo qulqulaya dadweynaha aad u fara badan oo iibsanaya dharka raashinka bakhaarada waaweyn ee ku yaala gudaha magaalada Laascaanood ka iibsanaya raashinka ay iskaga bixin lahaayeen Sakaatul Fitriga inkastoo guud ahaan gobolka Sool laga dareemayo hoos u dhac shilinka Soomaaliga ayaa waxay dadweynuhu cabasho ka muujiyeen qiimaha dhanka raashinka iyo dharka ay sheegeen in qiimaha uu taagan yahay halkiisii ganacsatada ayaa waxay sheegeen in wali lagu jiro badxidhankii xagaaga taasoo ku soo beegantay bisha barakeysan ee Ramadaan iyo Ciida sidoo kale waxaa laga dareemayaa u diyaar garowga magaalooyinka Tale Xudun kala Baydh iyo Goori iyadoo la filayo toddobaadada fooda inagu haya in la tukado Ciidul Fitriga guud ahaan gobolka Sool ayaa waxaa dhaqdhaqaaq ganacsigu noqday mid aad u fiican iyadoo suuqyada magaalada aad ku arkaysid boqolaal qof oo iyagu caruur wato ku socda goobaha lagu iibiyo dharkaasi oo ay uga farxiyaan caruurta daada yar ay u iibinayaan dharka iyo safarada keenay hadda noo qanciyay marka ka dhalinyarada idinku maxaad markasta u baahantiin wallahi markasta kolba wixii cusub baan u baahanahay marba isbedelay wixii cusub caalamka jecel baa lacagteeda marka maqaali baa masoocan may adigu markasta qiimo dhexdhexaad oo fiican dadka la geliyo mootay toos buu yimaadaan marka dhar aad u sareeyo deemoota dharka waxa lagu eegaa quality ay wataan mootay midabka mootay dooqa tayada waa tayada aad u hooseysa tayada baabaayo soo gubtay mootay in badan ay hayeen arwadan wax loo qanacsiistay kulli hadda aad fiican ardayda hadda toban jilsay hadda jaamacadda tahay hadda maxaan ku sheegay ardayda dugsiga sare tahay bulshada kale magaalada tahay ninkan waa nin oday ka tirsan rag lagu xisaabtamayo ka tirsan waliba dhalinyarada aad la saayay marka ka waran waxyaalaha aad badan jeceshiin in lagu soo kordhiyo dharka maxaa kamid ah ka dalbaysan dadka ganacsada dharka wallahi suuqa kale kulli in hadda magaalada maxaan ku sheegay magaaladeena waxa laga yaabaa in hadda dad dhex wad ka waayaysaa matalan suuqa far badan ama isku mid ah garanaysaa inta wax taas ku dareensiinaysaa ganacsiga inuu hoos u dhac ku jiro oo garanaysaa xagga horumarka marka kulli meesha hadii ganacsi ka jiro arweyn jira in laga helo wixii marka bulshada kala duwan u baahan tahay wanaagsan marka balka isbedel miyuu ku yimid xagga ganacsiga wax weyn oo la dareemi karaa ma jiraan adigu horta way iska xilli xagaaga badda xidhan laakiin marka xilli xagaaga loo eego kuma liidato marka waxyaalaha keentaan maxaa kamid ah dharka noocyadiisa waxaanu keenaa dharka ragga kabayowga suurarka qoyaasha shaalalka macawisaha dhar tayale baanu keenaayo aanu dhul badan ka keeno fog marka maxaad kaga duwantiin carwooyinka kale waxaan maxaad kaga duwanahay dhar tayale baanu keenaayo quality dadku waxay badan idin kaga codaan barayska aad u sareeyo marka bal ka warantaa maxaad kaga qanacaysaa wallahi Soomaalidu waxa ku maamada fadhiyo fuujil bil isku waayo dhar jaban iyo la isku helmaayay dhar tayale soo jiidaan ilbaxnimo dheeraada iyo horumarin iyo aad u noqotaan hogaankii berrito gobolka Sool hogaamin lahaa ee ku hogaamin lahaa daacad iyo horumarin iyo ilbaxnimo dheeraada marka waxaanu idin rajaynaynaa wanaag iyo soo dhawaada gargaarka ciidaad iyo aad u wanaagsan tahay anaga oo macaa dadka si hagar la ugu shaqeynaa kuna soo dhaweynaa ciida shaqadeeduna aad iyo aad ay u wanaagsan tahay bal ka waran maxaad marka dadka ku soo kordhisay wax cusub aad u haysaa dadka waxaan ku soo kordhinay qalab cusub alaabooyin wada cusub oo macnaha aan u diyaarinay inaan dadka ugu shaqeyno waa sida aad iyo aad baan dadka u raaligelinaa Dikri Nolol Somali Channel TV magaalada Laascaanood